anigoo dagaal dood iyo colaad iyo dirirka imi anigoo dagaal dood iyo colaad iyo dirirka imi oo dabeecadday tahay midaan dadkuba u dulqaadan karin oo dabeecadday tahay midaan dadkuba u dulqaadan karin dejiyahaa naftiyo daadihiyoho maxaan kula dalmaray dejiyahaa naftiyo daadihiyoho maxaan kula dalmaray maxaan kula dalmaray maxaan kula dalmaray ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo macallinkii weynaa mujaahidkii weynaa mulxamiistigii weynaa marxuum maxamed mooge liibaan barnaamijyadan oo kale waxa uu iga furu yahay oo aan jeclaystay in fanaanka maxamed mooge liibaan aan ku furo oo aan ku soo qaato caawa mid ka mid ah heesihiisii gaar ahaan kuwa aan isleeyahay qisooyin bay xambaarsan yihiin waxaa laga yaabaa heestan in dadka qaarkood ay u yaqaanaan in uu kamankiisa u qaaday laakiin anigu waxaan u aqaanaa in ereyada ka horeeya oo dhan anigoo dagaal dood iyo colaad iyo dirir ka yimi oo dabeecaddayduna tahay midaan dadkuba u dulqaadan karin dejiyaha nafta iyo daadihiyaho maxaan kula dalmaray halkaa waxaa kaaga muuqanaysa anigoo dagaal waa arrimihii ragga dood waa tii ragga colaad waa weligeed yaalaheed dunidu kama tagto ilaa bilowgii dunidu colaaddu way soo jirtay rag unbaanay dhex mari jirtay arrimihii ragga oo dhan dhiidhigii iyo dagaalkii iyo muxuu haayey haddana waxay kusoo koobmaysaa oo laga yaaba dadku inay meel yaroo dhow ka arkaan in dejiyaha nafta uu yahay kamankiisu naftu madadaalo kama maaranto oo in badan baynu heesaha ku dhagaysanay inaanay macnaha madadaalo ka maarmi karin oo dhibaato kasta iyo warwar kasta oo aada soo marto haddana kolley qofka bani aadanka maskaxdiisu si ay waxyaabo badan u dhiliid garayso qofku waxa looga baahan yahay kolley madadaaladu macno weyn bay nolosha u leedahay iyo miisaan culus maxamed mooge liibaan ilahay naxariistii jannaha ka waraabiyo barnaamij iyo barnaamijyo toona kuma soo koobi karo ma dhankii macalinimada ma dhankii mujaahidnimada ma dhankii musishinka ma dhankii maxamed mooge ma dhankii dadnimada ma dhankii deeqsinimada ma dhankii kaftankiisii sida laga sheekeeyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya maxamed mooge liibaan waxaa la yidhaahdaa raganimada sooceeda adigoo sagaal buuxshay halku seegay baa yaalla ragga ugu faraha badan ee fara ku tiriska ah ee raganimada ugu la yidhaahdo way ugu buuxaan ama way buuxiyeen kaalintii raganimo ayaa la yidhahdaa lambarkaa sagaalaad dirqi baa lagu gaadhaa maxamed mooge liibaan nin fara badan ayuu ahayo bulshada kaalmo fara badan ugu jira ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya isaga iyo mujaahidiintii kale oo ugu horeeyo aabbahay mujaahid muuse banjiir iyo ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan barnaamijkan waxaan insha allahu idinku soo gudbin doonaa oo aynu hadba meel ka eegi doonaa suugaanta iyo heesaha kala duwan ee soomaalida maxamed mooge liibaan anigaa jeclaystay inaan heesihiisa weliba sida gaarka aan uga dambeeyo aan idinku iba furo oo aynu ku amaamudno barnaamijkan maxamed muuse banjiir oo idinkala hadlaya muxuu ahaye banjiir production channel iyo banjiir production page waxaan idin leeyahay subscribe ha iga ilaabina wax weyn bay ii taraysaa garab istaag bay ii tahay guul bay ii tahay gacan weyn bay ii tahay share garayntu waa dhankiina haygala bakhaylina like-tuna ha harbeesho
dib intaaynu barnaamijkan oo kale ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa waa inoo suudaan.